mudanayaal ugu horeyn waxaa sharaf ii ah inaan hortiina ugu hambaliyeeyo gudoomiyaha cusub ee golaha shacabka jamhuuriyadda Soomaaliyeed ee loo doortay walaalkay mudane Maxamed Mursal Sheekh Abdiraxmaan waxaan leeyahay hambaliyo soo dhawow waxaan ilaahay subxaanahu wa ta'aala kadib mahad ballaaran u soo jeedinayaa xildhibaanada sharafta leh ee golaha shacabka Soomaaliyeed intii codkooda ay siisay oo ay dooratay iyo inta aan codkooda ay siininba dhammaan waxaan leeyahay aad iyo aad baad u mahadsantihiin waxaad muujiseen runtii dareenka golaha shacabka oo ka turjumaya dareenka shacabka Soomaaliyeed ayaad muujiseen tartanka wuxuu ahaa tartan dimuqraadi ah caafimaad qaba oo si xalaal ah u dhacay aniga ma aaminsani in la iga guuleystay laakiin waxaan aaminsanahay in geedi socodka qarannimada Soomaaliya habkay u dhismayso ay guuleysanayso taasna waxay tahay sababta golaha shacabka Soomaaliyeed loo aaminay shacabka Soomaaliyeed ay ugu aamineen amaanada culus xilliga adag la joogo inay daadiyaan dareenka la muujiyay oo aan ka hadlayo waan wada garanaynaa golaha shacabku wuxuu u baahan yahay runtii midnimo u baahan yahay wuxuu u baahan yahay in checks and balances ama isdheelitirkii awoodaha dawladda la soo celiyo in baarlamaanka shaqada ballaaran ee u taala shacabka Soomaaliyeed ay ka sugayaan oo dastuurkuna uu farayo aan la ilowsanayn oo shacabka Soomaaliyeed aysan ilowsanayn wakiiladoodana ay dareenkaasi qabaan waxaad ka garanaysaan oo codaynta ayaad ka garanaysaan mudane gudoomiye soo dhawow aniga aan kaftamo runtii waan guuleystay oo waxaan ku guuleystay in dareenka shacabka Soomaaliyeed aan ka turjumayo dareenka baarlamaanka aan ka turjumayo dareenka wadajirkeena aan ka turjumayo waxaan diyaar u ahay inaan sida ay doorashadu u dhacday anoo raali ka ah la shaqeeyo gudoomiyaha cusub wixii afkaar aan hayay aan ku biiriyo in aan gacan ka geysto isku soo dhaweynta afkaarta baarlamaanka ay ku kala duwan yihiin in afkaarta iyo nidaamka ay wax ku socdaan inaan wax ku biirino oo wax positive wax dhisaya aan ku darno inaan gacan ka geysto ayaan idin ballan qaadayaa waana kalsooni weyn baan qabaa kaftankaygu wuxuu yahay tartankan waa runtii meesha aan soo gaarnay waad arkaysaan odayaashii iyo familkii cidii madaxda u ahaydna halkay iskugu tageen waad arkaysiin laakiin waxaan leeyahay haddaad dhexdhexaad ka ahaan lahaydeen isbedelka iyo rajada ummadda Soomaaliyeed waxaan dhihi lahaa wixii aan ugu talagalay inaan ku kordhiyo way suuroobi lahayd haddana walaalkay baa ku guuleystay waan la garab taaganahay saasaad ogaanaysiin ilaahay subxaanahu wa ta'aala hana guuleeyo nabad waarta allahna siiyo sharaf iyo karaamad iyo haybada baarlamaanku uu leeyahay shacabka Soomaaliyeed ay leeyihiin allah noo soo celiyo faragelinta allah naga ajnabiga iyo midda dawladiidka allah naga yareeyo ani waxaan dhihi lahaa hambaliyo wixii hadala insha Allah iyo talooyina waxaan ku biirin doonaa gudoomiyaha cusub waxaan leeyahay waa mahadsantihiin mar kale iyo